kusoo dhawow channelka Mustafa cabdi. Mowduucan maanta ka hadlaynaa wuxuu yahay 10 nin ee ugu taajirsan Afrika yihiin tolay. Kaalinta tobnaad waxaa ku jira Mustafa. hantidiisu waxay gaaraysaa 2.9 bilyan dollarka Mareykanka ah. Da'diisu waxay jirtaa 68. wuxuu ka soo jeedaa South Africa. Mustafa wuxuu ku jiraa miidiyaha, wuxuu leeyahay gudoomiye ka yahay warbaahin ka shaqeysa in ka badan 100 wadan. sidoo kale wuxuu share ku leeyahay Tencent oo ah shirkad internetka iyo isgaarsiinta ah oo ka aasaasan China. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira Mustafa. Mustafa hantidiisu waxay gaaraysaa 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 58 jir. waxa uu ka soo jeedaa dalka South Africa. hantidiisan wuxuu ka kasbaday macdanta iyo soo saarista walxaha qaaliga ah. Mustafa wuxuu noqday ninkii midoobaa ee ugu horeeyay ee jaraa'idka Forbes ka soo muuqday liiska bilyaneerinta dunida 2008. Mustafa sidoo kale wuxuu leeyahay shirkado ka shaqeeya qodista iyo soo saarinta macdanta ku duugan dhulka. Kaalinta sideedaad waxaa ku jira Qaarada. hantidiisu waxay gaaraysaa 4.8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 77. waxa uu ka soo jeedaa dalka Algeria. Qaarada sidoo kale wuxuu leeyahay shirkado dhowr ah oo iskugu jira shirkado iibiya alaabaha aqalka lagu isticmaalo home appliance-ka. sidoo kale wuxuu leeyahay shirkad kale oo sonkorta soo saarta iyo shirkad kale oo soo saarta biraha construction-ka laga shaqeeyo. kaalinta toddobaad waxaa ku jira Rabiu. hantidiisu waxay gaaraysaa 5.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 60. wuxuu ka soo jeedaa dalka Nigeria. waxyaabaha uu ka ganacsado Rabiu waxaa ka mid ah dhulka iyo guryaha, sibidhka, sonkorta iyo ganacsiyo kale. kaalinta lixaad waxaa ku jira Sawiris. hantidiisu waxay gaaraysaa 5.47 bilyan dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 66 jir. wuxuu ka soo jeedaa wadanka Masar. sharar aad u fara badan ayuu ku leeyahay shirkadaha macdanta qoda. wuxuu mulkiile ka ahaa shirkad lagu tilmaamo telecom company Vimpelcom. wuxuuna iibiyey 2011 uu siiyey in ka badan 4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. kaalinta shanaad waxaa ku jira Adenuga. hantidiisu waxay gaaraysaa 6.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 67 jir. waxa uu ka soo jeedaa dalka Nigeria. hantidiisan wuxuu ka kasbaday saamiley uu ka yahay shirkadda labaad ee ugu ballaaran Afrika dhinaca telecommunication-ka. saamiga uu ugu badan leeyahay. sidoo kale wuxuu saami ku leeyahay shirkadda shidaalka ee Canoil. kaalinta afraad waxaa ku jira Sawiris. waa Sawiris walaalkiiye. hantidiisu waxay gaaraysaa 6.5 bilyan dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 59 jir. waxa uu ka soo jeedaa dalka Masar. waxa uu caan ku yahay ninka ugu taajirsan dalka Masar. waxa uu saami ah 6% ku leeyahay shirkadda caanka ah ee Adidas. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Oppenheimer. dhaqaalihiisu waxay gaarayaan 7.45 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 75 jir. waxa uu ka soo jeedaa dalka South Africa. waxa uu ka ganacsadaa Oppenheimer diamond-ka. waxa uu leeyahay shirkadda ugu ballaaran ee soo saarta diamond-ka. 2012 waxa uu iibiyey saami ah 40% oo uu siiyey 5.2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. kaalinta labaad waxaa ku jira Johann Rupert. hantidiisu waxay gaaraysaa 8.1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waa 70 jir. waxa uu ka soo jeedaa South Africa. waxa uu ka ganacsadaa saacadaha luxurious-ka ah ee qaaliga ah. waxa uu gudoomiye ka yahay kambaniga ugu ballaaran ee dhinaca soo saarista saacadaha qaaliga ah ee lagu magacaabo Richemont.
kaalinta koobaad waxaa soo gelaya Aliko Dangote hantidiisu waxay gaadhaysaa 17.8 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. da'diisu waxay tahay 63 jir. waxa uu ka soo jeedaa dalka Nigeria. Dangote waa asaasaha Dangote Group, waa shirkad aad caan uga ah galbeedka Afrika. waxyaabaha aadka uga ganacsada waxaa ka mid ah sibidhka, sidoo kale sonkorta, milixda, daqiiqda, biraha, saliidda iyo gaasta. halkaa waxaynu ugu dhammaaday 10 bilyaneer ee ugu taajirsan qaaradda Afrika. haddii aad daawatay muuqaalkan aad dhammaysatay, waxaan kaa codsanayaa inaad like tidhaahdid, sidoo kale subscribe si aad ku soo gaadho muuqaalo kuwan oo kale ah.